السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada mawduucayna maanta. Fadlan waxaan ka codsanaynaa haddii aad ku cusubtahay channelka intaan u guda gelin mawduuca inaad noo saarto subscribe, nagu dhiirigeliso like-ta, wixii fariin ahna aad noogu reebto ama wixii tala soo jeedin ah commentiga. laba nin baa sheekaysatay oo odayaal ah oo Soomaali ah waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo wariga masiibo ma kugu dhacdo markaas uu yiri haa waabay masiibo igu dhacdo suu yiri maxaa kugu dhacay nin waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curad oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhigtay marka masiibadaas waa igu dhacday kii kale wuxuu yiri aniga warigay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaartay masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaartay سوير أو محا كود عايز وحيري بابا هير بان لها دور يلا واتن الموضة والها لما بقول لي صدق بقوله جيل والها أري كوني بقاري أنا والها لما حاسنا ويش ما أنا كده ما كسفرة همين كي ما كده حي صلاة الصبح واجب مركب بريء أو نص ساعة ملهاس بان هير كمير في دقنا كسر بيننا خروب همين كي جاي مركب واحد يدوير هير كي أردن وحلا ينتوي قد عضي hal qof oo nool iyo hal neef oo nool ay soo gudjin dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigi awrtii xataa dhimatay marka wuxuu yiri waxa isku dayay xoolihii iyo saasay u jiifaan qortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan mid barkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo rarooy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay wiil oo dhagay mid xalad dilaaceen qaraxi meesha ka dhacay baa xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsaan meydkii tiriyay dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay biyo labadii xaas mid ka mid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ahayd baan waayay raadna mada roob baaday meelaha marmaray markii dhamaan weyd biyo ayuu geed hoosta ku socsan waa fiirshay gabadha way nooshahay ma dhiman ayadoo socsan tahay haddii baan soo kaxaystay keeriyaan soo saartay gabadhii baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhii baan inta u sameeyay meel aan oo درجة عمله بانساري هتيجي مع اللقاء وأنا سجال كده بعد بعد الواي ما أني كوتم بان ولا أبوي هتيجي وإسكان ببني مستحيل واحد عادي مشكلة جور عصر يدور مرتاح وهو خصديت ساعة بر ميرا حاسة بان وبيجي كوي بيدوي وبي ميل مران كوي آير بان ت جوادي نفول بقبضي كل جي بانا ساعة حتى ما كان سوق بحية كمان فكرين بيجي وجواد أنا ما يكوفوا فولا تايو وح سكين يمنا موت wuxuu yiri mar alla markii gabadhii fooshi qabatay ratiga baan ka dajiyay wiil bay dhashay laakiin nasiib darro waxaan xudunta kaga gooyay male geed baan inta fuulay bay xaleef ka soo goostay bi xaleefkan kaga jaray xudunta waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynay waa nin caadi u sheekeynaya asagu waa ninka la balaaya ay saartay cirib aniga iguma dhicin weligeed balaayo wuxuu yiri markay gabadhii u mushay waxana afkana uma siin gabadhan waa wareersantay iyadoo dhan bad nooc kale ay tahay gabadha xal wariq ku dhacdo dadka hore dadka oo dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratiga baan bireeyay ayr baa ratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisin oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaaday gabadha markay fiicnaatay xoogaa indhihi kala qaaday cadkii cuntay baan iribu ratiga noo qalay yahay ila meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribu yiri orado nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalayo inta qaadatay jeegaan wabiga da gabadhii mar alla markay ay tir wabiga aad saa u taabsiisay jeergaankii baalkii jeegii yaxaas baa ku dhigtay markaas waxaan arkay jeegii xirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii raaba ku soo laabtay hilib male marka qalitaan iyo u dhamaatay qofkii waa uu hilibka u qaliyay gabadha yahay asagu nolol kuma jiro wuxuu ilmaha yar baan iska qaatay dharkii aan gabo dhan waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduubay saa uu orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacay ari meel daaqay wiilkii yara oo aan watay oo aan asna nafku ku jirin hooyadina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa ugu gashay ونقاوي يا سوي الماء يركب وجهه استمر بكل جوجل مو كل جوجل بعوض حكوا وهلبي بحال الله يقول دكتي ويقول دكتي كربا وفي شمس جوار إننا أولين سواء في البلاير هيك أرجع دكتي معه ساعة مركانو يستاجوا عيرتين نقاونا هاي بيس سيديس ويعر
5 daqiiqo kadib baa waa kuwaan odayaal dhan oo niman dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qaylo geeso tir balaayo ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa oo gabadhii maanta leega cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa maray saaray biyo ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay biyo uleysay wada odaygu markuu cuntay siyaasado ila hadlay muu tagay yu sheekh iyo niman soo kaxeeyo gabadhii waa leegu meeriyo habeenkii baa aqal baa la geeyay hadeer buu yiri ninkan markuu u sheekaynayo dhowr iyo 20 ilmood iyo xoolo malaayiin aan leeyahay marka waligay dhibaatay uma dhacin laakiin maalinkaas cirib saartay taasi waxay suuraad ka bixinaysaa adduunka noloshu inay tahay aynaan iska sahlanayn marka noloshaada ay kugu dhicin kartaa noloshaas marka waa mid naftaada ku dhacday waxa jiri karta inay balaayadu kaaga timaado ama ku dhacdo dadka ku xigay oo waalidka inay ku dhacdo ilmahaaga oo ilmaha kaaga timaado inay kaaga dhacdo xaaskaaga inay kaaga dhacdo qof adiga kugu xeeran dhibaatadaas waa dhibaato gooni oo adiga gooni ku taabanaysa tii horena maxay dhibaato caam dhibaatooyinka marka mar labaad waa taan waxay u kala qaybsan yihiin mid waqti leh iyo mid aan waqti lahayn oo iska joogto midda waqtiga leh hal qodob baa la iska ilaashaa inaadan ceeboobin waligin ma maqasheen masiibo iyo magacabo maalin bay baxaan dhibaatadu haday hal maalin la taagan tahay abaar baa dhacday maalinkaas adigu ha harin waxa laga yaabaa inay bari roob dii doono hadaad marka maalinka ceeboodid dhibaatadaas waxay u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso dhahaysid war waxaani waa wax waqti loo waqtigaana xalin doonee adigu caadi iska marka inay taas kugu dhicin qodobada marka jira si kooban aan rabnaa inaan u tilmaano qofku waxa looga baahan yahay mar alla markii qofku wax ku dhacaan nolosha qayb kamid waa keenay ku cuslaatay qodobka ugu horeeyo la rabo inuu dhaqo waxa weeyaan ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun laana masiibooyinka dhan ilaahay baa keena qofku marka inuu isla marka xusuusto oo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mar alla markii kugu dhacdo intee leeyahay rabta masiibadu hal leeyahay waxa laga yaabaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee gaansa Aisha xadiidka warinaysa waxa laga yaabaa way tiri inta guriga iga danto fariista inuu nabigu dhaho la inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka masiibadu intee leeyahay hal leeyahay qodobka muhiimka qofka waa laga baahan yahay wax weyn